سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا قيمها iyo sharafta inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan ee xil walba ay ku tahayba waqtiga ha wacnaado waayahana ha samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad inoola socotaan fadlan haddii aad channel ku cusub tahay ay tahay marka kugu horeysay aad soo booqato ama aad nala kulanto subscribe saar si oo channelka yoolkiisa u gaar ahaan fiidiyogaana la gareeya siina share gareeya oo gaarsiiya asxaab fara badan si ay uga mid noqdaan asxaabta dhowdhow sidiina oo kale aad baad ugu mahadsantihiin inta dib inooga soo biirtayna aad bay u mahadsan tahay inta soo socoto waynu soo dhaweyn doonaa fadhiweynta siriicad dadka ku dhow lahaashiya channelkana waxaanu idin leeyahay karaamo iyo sharaf iyo cizi dushiina ha ahaato meel walba oo aad ku nooshihiin maanta waxaan inoo wadaa muuqaalkani muuqaalada kale waxbuu kaga duwan yahay waxa uu kaga duwan yahay ayaan rabaa bal in aan horta marka ugu horeysa idin falanqeeyo barnaamijkan waxa uu quseeyaa laba family oo aad u qurux badan oo aanu jecelnahay laakiin barnaamijka ay wataan iyo sida uu wax u socdo ayaan saluug iyo dhaliil aan ka qabaa wax kala maahan barnaamijkani waa barnaamij tartan ay gali doonaan ama ay video live tartanka sida aynu ku wada ognahay TikTok ay wada gali doonaan labada family ee kala ah Huda Amuun iyo xaajigeeda iyo boqorada isteelka iyo xaajigeeda barnaamijkaasi markii guud ahaan loo fiiriyo waa uu qurux badan yahay laakiin Ali Kay oo u dhaxeeya labadooda ayaa waxa uu run ahaantii xigsaday dhinac kale hal dhinac kamid ah labadaas dhinac ayuu xigsaday marka dhinaca uu taageersan yahay ayuu nooga sheekeen doonaa horta way wanaagsan tahay laakiin arrinkani anugu aad baan u yara dhaliilaa haddii ay sidooda ku dheelayaan family ahaan ay ku dheelayaan waa wanaagsan yahay laakiin waxaan doonayaa horta Ali Kay mowqifkiisa iyo cidda uu salka ku hayo ama uu la jiro ayaan horta marka ugu horeysa soo daawan doonaa ee bal daawasho wacan waxaa inta ka cadeynaa oo idinkana marqaati idinkaaga dhigaa gamekan oo la ciyaari doono inaad taageero u ahay boqorada isteelka iyo saydiga ummadda Soomaaliyeed saaxiibkay Haykal idinka aan idin taageersanahay guul iyo gobonimo aan idin rajeynaa insha Allah adiga taageeraysa labada family ya taageeraysa ani dadkaas wataa u fahanteen adigana qofka taageeraysid committee noogu reeb sida aad soo wada daawateen Ali Kay waxa uu si toos ah u sheegay inuu taageersan yahay Royal Family oo ula jeedo boqorada isteelka iyo xaajigeeda Haykal dhanka kalena uu isaga uunan taageersaneen habeenkaasi waa 26ka bishan hadda aan ku jirno oo 11aad barnaamijyadani sidan oo kala marka family ahaan loo ciyaarayo bal hadda meel igaga qora oo meel igaga xardha waadna soo xasuusan doontaan barnaamijka hadda sida ay u ciyaarayaan waa laba family oo run ahaantii familada aadka loogu ixtiraamo social media kamid ah oo aniga ahaan aan idin hadlayo waan ixtiraamaa laakiin barnaamijkani sida uu u dambeyn doono ama ishiisa aan arkayo xaq qabiil ayaa loo riixi doonaa oo noqon doona riixitaan kaliya ma ahan waa uu noqon doona marka waxaan leeyahay inaad ciyaartaan oo aad waqti qurux badan family ahaan ku wada qaadataan aad bay inoo farxad gelinaysaa waana idinku taageereynaa waana idinku rabnaa in aad family ahaan u ciyaartaan laakiin bahasha yaana laga dhigin qabiil mardhow qabiil yaan laga dhigin oo waan isgaranaynaa waana isnaqaanaa barnaamijyo sidan oo kala ah ayaa hadda ka hor waxa ay ina gaarsiiyeen in la kala fogaado oo meel waaweyn la kala gaaro barnaamijyadaasina waxa aabba iyo hooyo iyo aabooyin u ahaaba labada nin ee Bilal Bulshaawi iyo Shiino Culey waana ogeen heerka aan isla gaarnay marka ugu horeysana waxa ay ka bilaabeen barnaamij dhalinyaro ahaan ayay ka bilaabeen laakiin marka ugu dambeeyay tol ahaan ay u rogeen waxaan rajaynayaa hal ayaan nahay family ayaan wada nahay hal qabiil ayaan wada nahay oo Soomaali ah wax aan ku kala duwannahay malahan haddii aad ciyaaraysaan habeenkaasi waxaan rajaynayaa inuu habeenkiina idin qurux badnaado oo idin wanaagsanaado laakiin ha ka dhigina qabaa'il ha ka dhigina ee sida aad haddaba u ballan qaadaysaan oo aad u ballansateen oo aad doonaysaan inaad u ciyaartaan sidaasi oo kale ayaan rajaynayaa in aad barnaamijkiinaasna habeenkaasi aad ku wada qaadataan oo aad ku ciyaartaan waan isnaqaanaa haddaynu Soomaali nahay markii ay giftiyada kala cuslaadaan amaba ay dhinac u kala bataan waxaynu soo kacsanaa amaba aan boorka ka soo jafnaa qabiil anagoo markaasi iska ilaawno barnaamijka sida uu ku socday iyo sida uu ahaa markii horeba
waxaynu aragnay dhowr jeer sidaan oo kala dhacdooyin dhacay oo run ahaantii dad badani oo asxaab ah ay ku kala fogaadeen. hadda labada qof ee ciyaaraysa maaha, waxa ku kala fogaanaya waa dadka giftiyada iibinayo iyo dadka taageeraha u ah labada faamil ama labada qof ee markaasi ciyaarayso. barnaamijkan caalamka oo dhan waa laga ciyaaraa, laakiin waxa loo ciyaaraa si ka duwan nidaamka aan anaga u ciyaarno. anaga nidaamkeena waxaanu garanaynaa oo ma aan aad u isticmaalnaa haddii ay xaajo xumaato in aanu boorka ka soo jafanno qabiiladeena si aynu markaasi u guuleysano waqti xaadirkaasi. laakiin wixii ka iman doono ama xagga dambe ka imaanayo run ahaantii kama fikirno, oo waxa inoo daran shilimaad yar yar oo aan markaasi ka buuxsano akoonadeeni aanu ku isticmaalno ama aan isticmaalno. laakiin waxa kale ay sababta u noqon doonto ama barnaamijyadaasi ay runtii sabab u noqdaan maba fiirinaba oo danka ma lihin. haddii barnaamijka aad faamil ahaan aad ku ciyaartaan aad buu u qurux badnaanayaa. dad badanna waxaan rajaynayaa inay idinku daydaan oo ay maraan wadada aad martaan. laakiin haddii aad fool xumaysaan oo aad nidaamka kaga ciyaartaan 26ka waxa inaga xiga waa hadda maalmo kooban oo 3 cisho ayaa inaga xigta waqti xaadirkani muuqaalka aan duubayo. 3daasi cisho xayeysiino badan ayaana akoonada aad isticmaashaan aad ku samaysateen, oo qof walba waxaa rajaynayaa faamil ahaan in la idin taageeri doono, anigoo weliba hubo ciyaartaasi inay noqon doonto mid xiisad iyo xamaasad xambaarsan. waa haddii aad sida aad hadda u wadaan u ciyaartaan. laakiin haddii aad rogtaan oo aad weji kale u yeeshaan, ogaada waxaad kala fogeyn doontaan dad hor leh, waxaad isku diri doontaan dad hor leh, waxaadna weyn doontaan taageerayaal aad idinka maanta aad leedihiin aadna idin jecel oo run ahaantii garabkiina iyo guntihiina mar walba jecel inay taagnaadaan ay buuxiyaan. marka waxaad isku daydaan in aad faamil ahaan u ciyaartaan. qof walbana ha ku tashto taageeraha uu haysto faamil ahaan, ha ku tashto taageerada uu haysto faamil ahaan. labadiina faamil ma kala dhacdaan, xaqiiqda ayaan idiin sheegayaa, oo waxaad tihiin laba faamil oo xagga social media saameyn weyn ku leh. anna waan idin taageeraa, waxaana rajaynayaa inta Soomaali oo dhan in ay idin taageeri doonaan si faamil ahaan ayaan rajaynayaa, oo aadan waxba kala fogeyn doonin, inaad wax isku soo dhaweysaan mooye. waxaana mar walba aad ogaataan haddii aad wax isku soo dhaweysaan inaad noqon doontaan ku dayadayaal fiican oo lagu daydo. haddii aad laakiin aad qabaa'il ahaan iskula ciyaartaan ama aad qabaa'il ka dhigtaan bahasha, waxaad ogaataan in aad weyn doontaan taageerayaal fara badan. waa xaqiiq, arrinkaasi dibna wada fiirsada oo waxaad samaysaan wax idinka dhaxalgal idiin noqdo iyo wax aad idinka run ahaantii aad ku wanaag badan aad ugu horseedaan dadka inuu noqdo ayaan rajaynayaa haddii uu ilaahay idmo. barnaamijkana ha idiin qurux badnaado. 3 cisho ayaa ka dhiman, waa habeen xiise iyo xamaasadiisa wato oo ay dad badani ay sugayaan. gambaradan laydiin soo dhigan doono. labada faamil waa laba faamil oo run ahaantii jacayl iyo wanaag fara badan muujiya markay social media ay ku jiraan. sidaas u muujisaan ayaana u rajaynayaa in aad mar walbaba u muujisaan wanaaga inta ciyaarta socoto ilaa ay ka soo dhamaanayso. waxaan idin deenayaa Tiina oo ah reer Silicaad, maxaad adiguna ka aaminsan tahay? maxayse kula tahay hadalka Cali Keyna? maxaa kaaga baxay oo aad markaas ka xambaarsatay? waad nala wadaagi doontaa xagga commentiga videogan. ha ilaabina la garay, sina share garay, asxaab badan ha la gaarsiiyo. inta aan muuqaalkan mid xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa dhammaantiinba fi amaanillah.